ساعتية برشا وناكسن أهلا وسهلا سو دواada asxaabta igu xiran maanta waxaan sameysanaynaa waxyar oo wajiga madmadowga iyo finanka iyo wasaqda iyo bakteeriyada oo finanka wajiga dhaliso kaa saareyso maasha allah tabaaraka allah ahlan wasahlan soo dhawaada ya xabaayib inta waxaan ku haystaa waxyar oo xajab oo liina u baahan tahay iyo haaf oo ama jab oo yaanyo ah tomato ah xagana waxaa igu jirto macalka oo sokor ah marka waxaa u baahan tahay waxyar oo sokor ah iyo xabad tomato oo nuskeed ah iyo liin oo nus ah liin dhanaan marka waxaa sameynaysaan aad u fiican tahay dadka wajiga finanka ku leh ama madmadowga ku leh ama dad waxaa jira oo wajiga xabuub yaryar oo la fahmaynin laakiin oo bacteria camal ah oo wajiga soo dhashta sanka dhinacyadiisa marka liintii iyo waxaan isku dareynaa allah mustacaan iyo sokortii waxaan soo qaadanaynaa sidaa u isticmaali lahayn marka hadda waa kasaa calaamadii waxaan ku sameeyey wajiga oo caruusada ama bombilada marka waxaa soo qaadaysaa xabad nuska tamaadka soo qaadanaysaa sokortana waa soo saaray oo kusoo mariyay iyo macaliintii marka waxaa qaadanaysaa meesha oo qaasatan oo madmadowga kaaga yaalo aa ku rugaysaa waa ku rugay ilaa uu ka baxo madowga marka hal maalin le ma ahan hal maalin lagu soo koobi karo ama hal maalin ku dhamaanayo ma ahan waa wax soconayo ilaa aad adiga week ama 2 week aa ku wadaysaa haduu ilaahay yiraahdo ama isbuuceen haduu ilaahay ka raali noqdo marka waxaa sameynaysaa waa soo qaadaysaa tamaadkii oo haafka ah yaanyadii oo nus ah sokortii iyo liintii aa marinaysaa waa qaadaysaa wajiga ku rugay ilaa meelaha madmadowga wuxuu u badan yahay sanka dhinacyadiisa oo goomanka ah dadka qaarna wuxuu uga soo baxaa foolka korkiisa yacni madaxa ka hoos yacni indhaha korkooda marka waxaa sameynaysaa waa soo qaadaysaa waa ku rugaysaa ilaa oo madowgaas oo kaaga dhamaado waa ku wadaysaa marka wax aad u fiican oo waxaa waaye oo naturalna ah oo kiimikooyinna ay ku jirin oo waa iska tamaadna gurigaada waa ka helaysaa ama yaayo liin dhanaanna maba isticmaalnaba cunto liin dhanaan la-aan guri walboo yaalaa sokorna sideedaba iskaba dhaafbo waa iska wax iska iisi ee iska fudud marka sokortaada oo guriga ku taalay iyo tamaatada karsanaysaa nus ka soo reebanaysaa 2 xabad 3 xabad karsanaysa nus le ka reebanaa dib ma jiro sokortaas qaadaysaa iyo liin dhanaanta marka maxaa sameynaysaa wajiga la galay wajigaada ku soo rugaysaa wajiga ku soo nadiifsanaysaa wax weyn ma ahan waa wax yar iska fudud iska raqiis gurigaadana ku yaala adigana ku anfacayo oo ta kiimika iyo ka daba ordi lahayd tiktor waxaa ku fudud inaad alaabtaas inta soo qaadatid aad wajigaada ku isticmaashid iyadoo dhib ku geysanaynin waxna kaaga imaanaynin marka waji qurux badan oo nadiif oo dhalaalayo oo wasaqdii oo dhan ka baxday bakteeriyadii oo dhan ka baxday waxaana ogaatiin wajiga bini'aadamka maqaarka inay bakteeriya gasho oo bakteeriyadaas ay ku reereebayso xabuub yaryar oo finan mana baqaayo oo nabro ma naqanayso wuxuu naqanaa xabuub yar oo madmadow yacni nabar yar oo madmadow kugu naqanaya marka maxaa sameynaysaa alaabtaana qaadanaysaa waa ku ruganaysaa haduu ilaahay ka raali noqdo wax weyn ma ahan lacag badanna ma kugu fadhiyo waa waxaa aad halaha isticmaashay waa waxaa xataa $1 dhameynin haddii aad ka jarjaratid adeegaadi waaye asoo dhigatay oo badnaa oo guriga ku yeelay marka allah mustacaan haduu ilaahay yiraahdo saas ku wadaysaan waana ka helaysaan maasha allah wax aad u fiican oo idin anfacayo oo la barooweeyay waaye waan la idinka hubaa 100% oo idin anfacaya anana waa isticmaalaa maasha allah ana xabuubkaas yaryarka waxaana keenay xabuubyadaas yaryariska oo bakteeriyada camal ah saabuunta oo la iskula qabeysanayo dadka oo guriga yacni qof kasta imaanay uu ku qabeysanayo adina waa tagaysaa wajiga ku dhaqanaysaa problemka dhan meesha oo ka imaado waa meeshaas marka sida aad iskaga hortagi lahayd kana ku ruganaysaa allahumma akbar salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabtii waxirseetihiin fiican tihiin. maanta waxaan sameysanaynaa bariis isku karisaan ku dhahay kala dhufo kala orod leh ahaan ku dhahay macaanta. kusoo dhawaada asxaabtii waxiran bariiskeena maanta waxaa waaye ku dhahay digsigan saliid ku shubanay basal noogu jirto basal ku shubana maasha Allah. kusoo dhawaada asxaabteeda waxaa ku shubay heel iyo dhagayar iyo qarfa. waxaa ku dar liinta khaleelka ah. waxaa u baahan tahay kalan ku dhahay hilibkeena aan ku ridanaynaa waa kiilo hilib hilib lo yaris hilibkeeda maasha Allah. hilibkeena aan ku ridanaynaa hilibku waa soo dhaqay muxuu cad u yahay. marka saxaabta qaaliga soo dhawaada channelkan waa channelkiina aad iyo aad idin soo dhaweynaa gacmo furan. waxaa ku tirsanaynaa yaanyada gasaca ku jirto shishiid maaha yaay xabuub waaye oo jaais kaasna waa shishiid macalka shishiid iyo gasac yaayaan ku daran ku dhahay maasha Allah. waa isku labaad uu ilaahay yiraahdo suugadan ku dhahay si fiican loo labaa ilaa ay ka dhalaasho. soo dhawaada asxaabteeda qaaliga channelkana waa channelki Saacadiya Cook and Beauty. asxaabta taa ka heshaan subscribe-ka isaara like-tana waa noo dhiirigelin wixii fikradana commentiga noogu reeba. haddana waxaan galaynaa baharaadkii aan ku darsanaynaa ama xawaajiyaadkii. haddana waxaan ku darsanaynaa waxyar oo xawaaji Allah mustacaan iyo waxyar oo isheeg cusbe haddana waxaan ku darsanaa macalqada yariista cusbada macalqada cuntada lagu cuno waaye caadiga normalka marka macalqada cusbadaas macalka xawaaji macalka huruud oo ku darsanaynaa huruud caadiga oo macalqada iyadana yariista macalqada normalka halaas ku darsanaynaa haduu ilaahay yiraahdo. marka waa kaasa waa macalka huruud macalka xawaaji cusbadii. haddana waxaan ku darsanaynaa maajigaana ku darsanaynaa haduu ilaahay yiraahdo. haddana waxaan ku darsanaa waxyar oo maaji waa isku laba sidan ilaa uu kasoo baxaan ku dhahay suugo dhiidhiin oo ishcalaa haddana meeshaas waxaan ku haystaa waa kiil hilib hilibkeeni iyo qudaar baharaadkii wixii isku shiilayna ilaa isku bislaadaan. markaa si fiican isku karino oo si fiican u dhalaasho shiilanta. maanta bariiskeena qadadeena isku karis waaye maalmahan dhan kala karisaan karinaya laakiin maanta isku karis fududaad ahaan ku dhahay basiid kusoo dhawaada oo si sahal u sameysanaysa jagjag bariis isku karis waaba naqaana Soomaalida anahay isku kariskan ku dheereynaa. carabtan waxay u yaqaaniin kibsa anagana bariis hilib isku karis marka maanta waa kibsa ku dhahay bariiskii qadadeena maanta waa kibsa. marka saxaabtii igu xiran taasoo suugadan ishcaalaan ku dhahay yaanyadeeda waxeeda dhan isku qiyaasaan ku dhahay tuu ilaahay ku idmaayo. haddana daboolkiisaan saareynaa ilaa waxyar uu kasoo huuro kabacdina waa bariiski waa biyeeye taleefon ay soo gala. haddana bariiskaan ku shubaneynaa asxaabta bariiska qashkiisa idinka dabageenaa. bariiskana waa kiilo bariis bariiska waa qasa 2 saacadood oo i qasnaay. bariiska qalaan ku qasay qalka oo ana qala u aqaana wax kale ma aqaana kan dhanaanka oo qalki ahaan ku qasay waxaan ku daray 2 saacadood aan qasay. markuu bariiskii qalki isku soo dheemeen waa dhaqay bariiska daaqal ku tartiimada ka jajabaayo mid ka halaabay xabad oo naqanaa oo dhuudhuub ishcalaa u soo baxaa. bad ka bacd bariiskiina markaa dhaqanay qasaysiin oo qalku tartiin mid ka jajabaa laakiin daaqal ku darina bariiska dhan waa ka jajabaa. waa kana bariiskeena xabad waa 2 saacadood dhan oo noo qasnaay ishcalaa noogu soo baxay. marka qashkaas aad ka dabageena had ka bacd baroobeeya inaas u sameysatiin rajeyna oo bariiski iyo qalka isku soo darsataan waxyaro qalle ku dareysaa qal alaal qalka haysta qalka cadka iyo qalka oo brownka ama gidud xigeenka qal tufaaxa iyo qalcada jiro oo bibiya camal kii haysatid qalkaas ku qasaysaa bariiskaas uu soo fiiriyaan ku dhahay woona ka dhaqaa bariiska maadada ku jirto oo dadka dhiban oo ka dhaqaa bariiskana ma ka jabaayo mana ka halaabay isku dhagdhagaayo hal xabo naqana oo ishcalaa oo macaan badan. bariiska markii la qasin had bariisida samanka hadaa soo caadi karisid ma fiicno hadaa qasidna wuu ka jabaa. marka danta maxay ku qasbaysaa inaa waxyaro qal ku darsatid qalka baroobeeya bariis badan oo ishcalaa oo jajabsanaynin
oo qurux badan oona soo ureynin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi